شابين codkiisa iyo dhalinyarada arinta ka gadooday ee caburinta saxaafada ay dhalinyarada dawada arinta oo kula kaxay saxaafada gobolka Awdal waan cambaarayna waxaan ku cambaarayna wadadii hore ee hayay maamulkii ku horeeyay iyo wixii ummadana ay ku codaysay in wali hayo wadadeedii u muuqata gudoomiyaha gobolka Awdal صحافته عندها مطة صحافته حير نمبر 27 2004 أمريكا كيسة للسمية برنامج وتشيء بقى حير صحافة هذا دستور قاعدين هي حرية القول كصحافته إنه قوانين تي حرية القول كصحافة هذا دستور كي حير كل شيء وما تقبل كهذا ولا قدوميها قانون ولا هي وحوي يقلب وسبال رجعت هو يحملها لكن جهات محملها قدومية ومضوا waxay kaaga fadhiyay wax qabadkii boqolka maalmood inaad ma taqaanay wixii qabsoomay adu sheegtay kaaga fadhiyeen kaaga maysa fadhiyin saddex bilood gobolka joogto 7 cisho wada joogtid mudane gudoomiye oo ku ka warhayna laba bilood oo kamid ah Turkiga baad ku maqnay hal bilood waxaad ku maqnay Hargeysa iyo Burcad ku maqnay maalinkii aad timadana goobada iyadoo kaaga fadhida inaad wax qabadkii boqolka maalmood ahaa aad ma taqaanay ummadda u bayaamisay wuxuu u qabsoomay aga jugleen iyo ma taqaanay waxaad ula timiday kan muxuu yiri iyo kama hadli kartaan taasina حتى الدولة وحبك ما قبل كرتو إسكابة دا يسوق برصار والصحافة وشيء كلية يعني كل جدين كانوا information أي مدة كانوا حقوق شيء كانوا من كانوا دلنا ومنهين من قالن كانوا إن عنا كان نلقوا كالباشون لا يلعبوا وح أذكر لسان عربسون سول دت كذي بحاجة جستي واضح داو يلا واحد نقول ساعة مع ايرو تي في برنامج كني أبرون شو واضح maxaa keenay barsaab walba oo la keeno inuu meesha ku naaxo oo lacag ka sameeyo oo u goodiyo haddana meesha ay noqoto meel xayndaaban oo ka xaydaaban inta maamulka uu maamulo ka xaydaaban oo dadka ay noqoto meel dictator uu haysto oo aanan la hadli karin la caburiyo maxaa keenay ma isla gobolka u ogolaada shacabka u ogolaada arrinta markay soo dhaweynayeen ayaga ku soo dhaweeyay ayaga wuxuu ku soo dhaweeyay baqbaq iyo amaan iyo waxaan jirin qofka leeyahay ma ayaga arrinta u ogolaada dhowr arrimood baan u kala qaadi doonaa shacabka ku nool Awdal iyo degmada Gabiley hore waxaan u sheegnay shacabka marka leeyahay waa inta nidaamka la dhacsan oo aaminsan waxa loogu yeero Somaliland dhibaato kasta oo ku dhacda iyaga ka mas'uula marka aad barasab ama wasiir ama xildhibaan ama qof aad dooranayso qofka waa la iska shandeeyaa Soomaa qofka taariikhdiisa CV-giisa wuxuu yahay aqoontiisa yaa la eega qofna aqoon ayaa waxay kiyu galay dilo ilaa iyo gabileba dilo iyo u galayaan kiyu soo dhaweyn oo la arag hatta ninka haduu yahay loser ayaa waxaan garanayaa hadda Abdul Ayar iyo ninkii loo oran jiray muxuu ahaa ninkii nin odayo Abdul Ayar ninkii dheera oo Abdul Ayar waxa ku xigay nin kale oo la oran jiray Ramaha nimankaas oo dhan waxay ahaayeen dad luusaraha oo sanaag iyo togdheer iyo maxaa berbera intaba laga soo tuuray sumadkan aan kugu daray dadku u fooshuxin oo loo soo diray gobolka fool xumadu aad u baya qofka fiiri muraayada la iska eeganayo waa inay noqoto muraayad nadiif ah dadku u noqoto dadku daydaan laakiin barasabde ay ka dhamaato fool xun laftigiisa barasabka ay ka dhamaatay oo balwad leh oo gobolada kale khayr mas'uul noqday oo xataa meelaha qaar faraxumeen wax sameeyay ayaa Awdal loo fadiraa sababtoo ah gobolada kale dad nool oo xor ah oo tashanaya oo wax qabsanaya oo maamul iyo maamul la'aan kala garanaya jooga laakiin halkan waxa jooga oday $30 ku shaqeeya siyaasi aan calooshiisa dhalgin oo gacanta sida u taagan aqoonyahan buug u wato oo waxba soo kordhin dhalinyaro iyo dumar iyo dad isku huban oo u yaqaano mashaarad iyo soo dhaweyn wax kale ma jiraan Somalkan runteenu ka shaqaaleynaa awada dad nool ku noolyihiin oo usle oo dhiidiyo looma soo diray dadka noocan oo kala ah qodobka kale waxa weeye dadka maanta sheeganaya siyaasiyiinta ama dhalinyaro leh ama odayaal leh أنا فهمت إنه كان لنا ما أنت إذا عيب أنتوا ذي واحد متاهل كولج أم هل جامعة أو قصة بحين قاب كلام هذا أو قاب ضعيفة أو ليد نما أو دولس كده أو كمرن يعني حي نما كمرن أو كمرن العشاء
inay dadka markay hadlayaan inay dhul leeyihiin inay malaayiin dad yihiin ma moodid dekado iyo aeroboorro iyo dhul inay dhisan karaan ma moodid waxaad moodaa dal lagu yiri adduunka inta meelka laga keena martiba meesha ku tigin si u baryotamayaan dadkaasa ugu wacan intaa waxaa usii dheer iyaga oo borobagando iyo maran habaabin iyo been iyo khiyaano iyo xasilnimo isla dhex socdo oo been ka sheegaya dad aanan u soo socon iyo dad aan joogin oo intaa been ay sheegayaan soo markan caawa haddaad damaad inaad wax wanaagsan u qabato boorma tagto damaad inaad cisbitaal furto qofka ugu horeeyo ku wareemayo ku dilayo ku basaasayo waa iyaga soo markan dadkan markaa anigu ma garan karayo waayo waxaa jira ummadii gada bursigeeda la yaqaanay gobolada dekeneed dhaqanka meel lahayn xariirada marka laga hadlo dad dhaqan leh oo asluub leh oo sharaf leh oo xishoodo oo